in badan baanu ka warranay heshiiskaa berbera waa heshiis dhalanteeda oo aan cid aragtay aanay jirin waxa lagu heshiiyey waa sanad iyo 8 bilood oo DP World ay ku hayso gacanta berbera wali riyaal inagama soo gaarin riyaal wali inagama soo gaarin waxaan aad u la yaabay waxa la weydiiyey wasiirka maaliyadda markii uu budgetka soo gudbinayay miisaaniyadda 4 su'aalood baa la weydiiyey wax la taaban karo wasiir waxaan ku weydiinaynaa budgetka kuma jirto saldhigii berbera waxaynu siisanay kharash uu leeyahay wasiir waxaan ku weydiinay dekadii sanadka iyo 8 bilood gacanta lagu hayay budgetkeedii wax kagama jiraan wasiir waxaan ku weydiinay karadii la sheegayo waxba kagama jiraan halkay wax ka qaldan yihiin salaadu ka xidhmi lahayd wasiirku wuxuu ku jawaabay deyn baa loo jaraa subxaanallah goormaynu deyn qaadanay dekadeennaad ogeyd baynu wareejinay ee sourceska keliya aynu lahayn waa ay deynta cidayna amaahaysa waa ay sicida qaadatay subxaanallah idan الكذب عند الشريعة حرام وعند الأمراء كبيرة من الكبائر وحيونا لما حيسكو فوق صدي وحناد الله يابي هذا الكيو أف عربية أضوبا ومحمد أور الغرغاش ووسير كارمها تبدي إما تلي إماراتك أو هضية إما كيوتيوب كو كتشرة BBC da af Carabiga oo wareysanaysa ayaa ninba wuxuu ku leeyahay wuxuu u jeeday sidaas war muxuu u jeeday waa tan qoraalkiisii isagoo hadlaya oo afkiisii ay tahay oo live ah oo TV-ga ku jiray muxuu leeyahay ninkaas Soomaali weyn baanu aaminsanahay annagu wax Soomaaliland la yiraahdo marnaba cid kale maanu hadal buu heshiiskaasi waxaanu la galnay dawladihii Soomaaliya oo saxeexay Somaliland arrimaha aanu la qabsanayna waa arrimo bani aadamnimo buu yiri subxaanallah dekadii berbera ayaa waxay noqotay mashruuc bani aadamnimo oo kartoon laynagu caawinayo sidoo ninkaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda rasuulku calayhi salaatu wassalaam isagoo ka warramaya beentu dhibaatada ay leedahay sida Bukhari Muslim ay wariyeen waxa uu yiri آية المنافق 3 منافق أنك الله يقاله صدح سفو ليه إذا حدث كذب هدي ورمه بين بوشيغية أيها رسولك عليه الصلاة والسلام وإذا وعد أخلف هدو بلن قاضنا بلن كيوا كبح يا بويلي رسولك عليه الصلاة والسلام وإذ اؤتمنا هدي وحلقوا آمننا خان وخيامينيا هذا الكيغو كوبا وحان ليه بارك الله فيكم حكومة وحان كلة لنين وارنتا جوكتان واسنة كوبا فيرس ترمكو دولدنا ونواشن سنة وحان لغا هذا ليه أذر heshiisadan laga hadlaya ilaa ilmaha dhalan doona qiyaamaha agtiisa waa ay cid og waqtiga qiyaamahu dhici doona kuwaas wax ku leh heshiisada la galay oo raaday ku yeelanaysa waxaan leenahay war wixii ha cadaadaan ma aha adeer dukaan aan leedihiin ma aha adeer bakhaar aan leedihiin ma aha adeer balood aan leedihiin waxa laga hadlayaa waa masiir umadeed marka heshiisada ay galeysaan bal kuwii aan la gasheen baa hadlaya wala wax la heshiis aan la galnay Soomaaliland ma jirto iyadoo cad lahaya oo markii horena xukuumadda aan la gal xamartii aan waxba haynina containerka ku jirtay ee Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin baatri adeer meesha iskaga bax tiibay beer la xawsanayaan maanta bal adigoo xora oo waxa Ilaahay ku siiyay ogtahay oo ciidankaaga dhisan yahay
370 مليون وهي ميزانيتين يعني ودرسكي ugu dambeeyay wadal isku filan wadal qaniya wadal wax noqon kara wax laaliyo waxay nagu kalifaya dawladda la yaqaan waxay ka shaqeeyaan iyo istiraatiijiyadooda wuxuu imaaraadku ka shaqeeyaa qandaraasyadu qaatay safqatul qarn ee geeska iyo bariga dhexe ku saabsan ee uu qaatay maxay tahay waxyaalaha qaarkood masaajidka lagama sheegi karo waayo laa yusaddaq waxa laga yaabaa dadku inaan laga rubaysan yani arrimaha qaarkood subxaan allah walciyaadu billaahi qadiyadda somalilan adeer somalilan cidina waxba kama bedeli karto wadaad waxba kama bedeli karo xataa golayaasha jira xukuumaddana ku dar waxba kama bedeli karaan boqolkiiba 790 baa heshiiskaasi uu ahaa aftida dadka laga qaad cid wax ka bedeli karaysa ma jirto ama adeer heshiis hoosta gala ama mid sare gala suldaanna waxba kama bedeli karo reer waxba kama bedeli karay waa ku caanamaasheen waxaa yarnay inay ilaashataan baa wanaagsan laakiin waan idiin sheegayaa waa hadaf Soomaaliland dad badan bay hadaf u tahay qaar gudaheena ku jira ay hadaf u tahay Soomaaliland waxay hadaf u tahay dad inagu xeeran oo aan jecelayn inay hana qaado waxay hadaf u tahay qaar dheef badan ku helay intii ay jirtay ay hadaf u tahay inay duumiyaan Soomaaliland la sheegayana adeer waa heshiis nabadeed oo ummadi ay wada gashay haddii aan dadku wax wada yeelanna waan idiin sheegayaa adeer cidna kama shaqaynayso xukuumadda waxaanu kula talinaynaa inta caqliga iyo cilmiga le waxaanu kula talinaynaa war haysmacaashsiinina sidaa moodaysaan ma aha tabashada iyo dareenka dadku aad buu u badan yahay ummaddu waxay u baahan tahay dib u heshiisiin waayo bani aadamku qalbigu ka wada socda laakiin af iyo manaasib iyo waxaas wax shaqaynaya adeer maaha dadku waa deegaano ilaahay baa meel ku wada abuuray waxaan leenahay war kalsoonidii ha la soo celiyo ummadda war ummadda dib ha loo heshiisiiyo war dadka caqliga iyo cilmiga iyo garashada leh war halala tashado war inta wax kala fogeynaysa ee iyagoo ujeedadoodu interest ay tahay wax ay markaasi qaataan ama mashruuc ay fuliyaan sababtoodu ay tahay ee laakiin shaaran xidhay inay daacad u yihiin xukuumadda jirta iyo iyagu wax markaa magac